wiil yar oo ka soo baxay tuulada Mazuu ee waqooyiga dalka Zimbabwe ayuu ahaa ka hor inta uusan wacdaro ka dhigin dunida. Cidna ma aysan filayn wiil Afrika ku dhashay oo aan ka bixin weligiis in uu sameyn karo waxa uu sameeyay Maxwell. ilaa saynisyahanada dunidu ay sheegeen in aysan rumaysan karin. Ruuxa aan ka sheekaynayno waa ninka ku dhacay imtixaanka dugsiga sare ee iskuulka oo halkaasi uga haray waxbarashada, laakiin ma rumaysan kartid inuu sameeyay baabuur koronto ku shaqeeya ilaa helicopter. Sheekadan ayaan ku eegi doonaa muuqaalkana sii faafi. Magaciisa oo dhammaystiran waa Maxwell Chikumbuso, waa nin u dhashay dalka Zimbabwe, dalkan ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Maxwell wuxuu waxbarashadiisa kaga tagay dugsiga sare kadib markii uu ku dhacay imtixaanka, taasina waxay ahayd niyad-jab weyn dhinaciisa isaga oo da'yar. Hase yeeshee, waa tan dhiirigelisay ee ka dhigtay mid magaciisa uu gaaro dunida oo dhan. Waxa uu markaasi bilaabay in uu barto tiknoolajiyadda oo uu yaraantiisu jeclaa. Wuxuu samayn jiray xilligii uu yaraa in uu ku cayaaro furfurista raadiyaha, mashiinada iyo korontada halkii uu la dheeli lahaa carruurta kale. Waxa uu markii ugu horeysay soo shaac baxay sanadkii 2010 kolkaasi oo uu caan ka noqday guud ahaan dalkiisa. Waxa uu soo bandhigay mashiin casri ah oo uu sheegay in uu koronto sameeyo isagoo aan isticmaalin shidaal iyo solar midna. Waxay ahayd arrin ay la yaabeen dadweynaha dalka Zimbabwe. Markaasi wixii ka dambeeyay, waxa uu dhiirigelin ka helay dadkiisa iyo dalkiisa. Waxa uu aasaasay shirkad uu gaar u leeyahay isaga oo lagu magacaabo Thales Technologies. Waxa uuna sumad u yeelay wax soo saarkiisa tiknoolajiyadda. Cidna ma filayn in wiil Afrika ku dhashay uu sameyn karo waxa uu sameeyay Maxwell. Waxa intaa ka daran in uu gaarin heer jaamacad, iska badaa in uu waxbarasho dibadeed u aado Yurub iyo dalalka horumaray. Waxa uu sii caan baxay markii uu soo saaray baabuur koronto ku shaqeeya oo ah noocii ugu dambeeyay oo aanan u baahnayn shidaal iyo batari midna. Mid ka horumarsan kan ay sameeyeen dalalka horumaray ee dunida koowaad ayuu soo saaray Maxwell, ninkan ku dhashay tuulada yar ee ku taala waddanka Zimbabwe. Mar kale, waxa uu soo saaray telefishin ama shaashad laga daawado muuqaalada, laakiin waxa ay tani la gaar tahay oo ay uga duwan tahay shaashadaha kale in aysan u baahnayn koronto la xiriiriyo iyo xarga tiro badan oo dabada looga xidho. Taasi beddelkeedana waxa uu ku shaqaynayaa TV-gaasi waxa loo yaqaan radio frequency energy. Waxa intaas dheer in uu soo saaray helicopter ama diyaaradaha qumaatiga u kaca, taas oo ahayd mid tijaabo ah sida uu sheegay. Markan, dunida oo dhan ayay gaartay farsamadiisa la yaabka leh ilaa ay saynisyahanadu ka qayliyeen. Saynisyahano iyo injineero reer galbeed u badan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsaneen oo ay xataa suurtagal ahayn in la isku sameeyo waxa uu sameeyay ninkan dhalinyarada ah oo ku nool qaaradda Afrika. Isaga oo xataa la kulmay xarig, marna waxa la wariyay in sun la siiyay oo uu isbitaal u yaalay waqti badan. Si kastaba ha ahaatee, waxay dad badan ay la cajabeen hal abuurkiisa. Ninkan dhalinta yar ee isaga oo aan Afrika ka bixin sameeyay tiknoolajiyad ay adag tahay in ay sameeyaan dawladaha horumaray. Waxa dhiirigelin ugu tagay madaxweynaha dalka Zimbabwe oo uu tusay baabuurta cusub ee uu soo saaro ninkan Afrika u soo baxay. Bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag, muuqaalkana like saar oo sii share gare